qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Wajaale ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dhulkii iyo wadooyinkii hore uu maray Masar Baleenkii laga sameeyay magaaladaasi oo ay sheegeen in maamulka ka jira magaalada Wajaale ay fasaxeen dib u degista dhulkaasi uu hore u maray Masar Baleenkii laga sameeyay magaalada Wajaale. shacabkani oo la hadlayay telefishinka SBC ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu hore u bixiyay qarashkii lagu sameeyay Masar Baleenkii laga sameeyay magaalada Wajaale. magaalada Wajaale madaxweynaha waxaan ka codsanaa wadooyinkii dadka laga dumiyay ee toobleenka la mariyay oo ummadda dhan ku kacday ayaa maanta la dhisanayaa dawladda hoose iibinaysa. waxa weeye markaa madaxweynuhu inuu wax ka qabto arrintaas annagoo magaalada Wajaale ka hadlayna ayaan ka codsanaa. waxa weeye ummad baa ku kacday, ummad baa xoolahooda ku kacay, haddana maanta dib baa loo wada dhistay. markaa madaxweyne waxaan ka codsanaa inaad naga qabato arrintaas walla yidhaahdo ugu degdega badan leh. lacag badan baa ummadda kaga kacday. waxa weeye bakhaara la baabiyey, bakhaaradii baa dib loo dhistay maanta halkii laga baabiyey ummadda ku baabaaday. markaa madaxweyne waxaan ka codsanaa inuu wax ka qabto arrintaasi. shabeelkii macaqka baxda madaxweyne dib baa loo wada dhistay. meel bannaan ma jirto dee ummaddu la baabinayay. waxa weeye dee ummadda hantidoodii meeshaa ku baabaaday, haddana in maanta la dhistaa meesha ma taalo. magaalada Wajaale la dhaato ballanadii baa lagu soo durkay, nin walba meesha doonay u dhistay. meel la maro lama hayo. waxaan u baahanahay mas'uuliyadda iyo madaxweynuhu inuu ogaado oo indho dheer loo lahaado meesha. meeshu way magaalowday, magaaladuna way toobalan laataa wanaagsan. ma garatay magaaladuna inay toobalan laataa wanaagsan. toobalanka in la hagaajiyaan u baahanahay. ma garanaysaa markaa dib baa loo wada dhistay toobalankii. dawladda hoose way simayin saddexduba albaabkaas shalay ugu dambeeyay la masbaari ninka waa lagu xidho $500 bay qaadatay. ama imikaas qabala waxa weeyaan dawladda hoosiyada waxa weeyaan masaakiinta ku nool degmada Wajaale horta waxa weeyaan laba loo kala goostay. waxa weeyaan dawladda hoose waxa weeyaan barandiisha $100 bay qaadanaysaa. markii wax leeyahay sidana wax laga qabto dadka lacag laga qaado ayaa haddana biri laga dabaymanaya. wallahi bille tolle inaan meyd laga soo saaray qoladan meesha iska haysata day malaha kiray ka bixiyaan ee la bedelayn meesha way iska iyagu leeyihiin bay isku haystaanba. waxaan kale wax loo adkaysan kara maaha. reer Wajaale arrinkan ka dhiidhiyaan maamulka la xisaabtamaan waraaqan baybar iska haysitaan nooc cashuur baa ku qoran. arrintaasi maaha midda labaad qofkii hadlaba aniga igana ka cabsanayo in geliga dambe la xiro. magaalada hadduu maanta qof dhinto meydka meel la maro lama helayo. magaalada kaliya dhaqaaluhu ka soo baxo haddana dhaqaalaha waxba nooma qabtaan. ma lihiin meel biyo nooga soo galaan gaari booydood, ma lihiin meel maxaan dhahday meyd laga saaro, ma lihiin meel aroos laga hooyo. waxaan u dhimanay wada xumo. hore ilaahay baa mahadle. mar labaadkii waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne waa inaad dalkaaga hoos waxaa la dhahay waqtigii rasuulka cali sallallahu saxaabada taabiciin markii gaadhay ayaa waxaa la weydiiyay Umar bin Khadaab oo lagu Umar bin Khadaab ka waran xilkaad haysay. wuxuu dhahay wada xumo faraska ugu jaba yani Ciraaq. waxaa la weydiinaya aniga oo haysta maxaa la dhahaa marka waxaa leenahay madaxweyne wadooyinkeega yani. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.